wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan halka aad naga daawanaysaana waa tubta wararka hagaag madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa saacadihii u dambeeyay waxaa ka soo yeeray hanjabaadiisii ugu horeysay markii ay u cadaatay in dowladda ciidamada dowladda Ruushku marna aanay ka laaban doonin weerarkooda ay ku hayaan dalka Ukraine ayaa maanta waxaa si caray ka muuqatay u hadlay madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo ku dhisay xilligaasi ka hadlayay warbaahinta dalkiisa. Zelensky waxa uu sheegay in dowladda Ruushku ugu digayo in gebi ahaanba ay xirto badda madow ee markaasi ay leedahay dalka Ukraine waxaana uu caalamku u sheegay haddii Ukraine lagu fiirsado dhibaatada imika haysata inaanay suurtagal sii ahaan doonin in duniduna ay nabadi ka sii jirto. Ruushka ma jirto buu yiri waxa uu dhaafayo oo ku saabsan dagaalka Ukraine iyo nolosha dunida oo dhan waxaana hadda uu isku dayayaa buu yiri in gebi ahaanba uu xanibaad ku soo rogo baddeena si gaara dhinaca buu yiri ee badda madow iyo meelaha ay soo mari lahaayeen maraakiibta gargaarka u wada dowladda Ukraine waana waxa uu diidan yahayba dowladda Ruushkana ay si weyn uga careysan tahay ayaaba in maraakiibta dadka ajnabiga ama dalalka ajnabiga ay leeyihiin ee Ukraine hubku ku daabulaya ay dekedaha Ukraine adeegsadaan waana waxaa la leeyahay waaba sababta ciidamada dowladda Ruushku ay u beegsanayaan goobaha kale ee muhiimka ah oo dekedaha dalku ka mid yihiin. hadda ilaa iyo 4 dekedood ayay ciidamada dowladda Ruushku dhulka la tumeen oo aan shaqaynaynin. dhinaca kalena garoomadii diyaaradaha kuwii raydka iyo militariga ayaa iyaguna in faraku tirisa ay hadda ka shaqaynayaan. hogaamiye Zelensky ayaa yiri ciidamada dowladda Ruushka ee soo duulay bal eeg waxay hadda isku dayayaan go'doominta baddeena iyo in xitaa ay naga horjoogsadaan ciidana caawinaysa. inaguna haddii aanu nahay shacabka reer Ukraine taasi ma qaadan karno ayuu yiri waxaana ay dowladda Ukraine hadda markii ugu horeysay ay ku faani kartaa in dhamaadkii bishii Abriil ee aan soo dhaafnay ay ciidamada badda ee dowladda Ukraine ay guul ka gaareen ka gadaal markii mid ka mid ah maraakiibtii ugu muhiimsanaa ciidamada dowladda Ruushka ay gebi ahaanba dalooliyeen oo ay gantaalo la beegsadeen markaas oo ay naafuuday howlgalkii degdeg ah la qorsheynayay ee dalka Ukraine oo ku saabsanaa amaba ka imaanayay dhinaca iyo dowladda dalka Ruushka. inkastoo ciidamada dowladda Ruushku aanay hadda markabkaasi u dhutin haddana dowladda Ukraine waa markii ugu horeysay oo ay ku sheegayso in hanjabaadeedu ay ka dhabayn doonto haddii dowladda Ruushka isku daydo in gebi ahaanba ay go'doomiso badda madow. waxaa kale uu sheegay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky in haddii la duqeeyo oo la baabi'iyo dekedaha ay ka mid tahay Donetsk ay dunida dareemi doonto baahi aad u daran iyadoo qof walba iyo waxa uu hadda haystaana ay u mudan tahay buu yiri in uu markaasi si weyn u ilaashto. Ukraine weli waxay la tacaalaysaa ciidamada gardaroolayaasha ee dalkeena ku soo duulay. qof walba oo u dhashay Ukraine haatan waxaa saaran waajib ah buu yiri inuu qoriga qaato oo uu dagaalka safka hore ka galo. dhinaca kalena Putin ayaa isaguna waxa uu sheegayaa in ciidamadiisu ay dib isu abaabuli doonaan oo sidoo kale uu isku dayi doono in markaasi tilaabo adag uu ka qaado ama xitaa uu baade goobayo dilka hogaamiyaha dalka Ukraine. sirdoonka gudaha ee dalka Mareykanka gabadha maamulaha ka ah ee la yiraahdo Avril Haines ayaa iyaduna waray soo saartay ku sheegtay in Putin uu diyaar u yahay in muddo dheer uu dagaalka dalka Ukraine u wado. sababta ayay ku sheegtay in Putin uusan haatan wax degdeg ah ku jirin isla markaana dagaalka uusan doonayba in daqiiqado ku soo dhameeyo. intuu rabo ayuu dagaalka sii socon doonaa. dowladda Ruushkana arrinkaas ma mooga ayay tiri
gabadha la yidhaahdo Avril Haines oo ah taliyaha ama agaasimaha sirdoonka gudaha ee dalka Mareykanka, kaas oo loo yaqaano National Intelligence. Putin waxa uu isu diyaarinayaa in dagaalka dalka Ukraine uu muddo badan qaato, waana ka digaynaa arrintaas ay jiri. Sidoo kaleeto guushii Ruushka ee uu markaa ka gaarayo gobolka bariga ku yaala ee Donbass la yidhaahdo, ayadu laftarkeedu ma aha bay tiri gabadhan mid si degdega ku imaan doonta. agaasimaha hay-adda amniga gudaha Mareykanka Avril Haines ayaa sidoo kaleeto sanadka Mareykanka la wadaagtay qoraal ay heshay bilihii u dambeeyey oo markaa muujinaya dhaqamada dowladda Ruushka hadda waxaa sii kordhaya bay tiri marxaladda dagaalka, iyada oo xiriirka Putin ee dhinaca dagaalka istiraatiijiyadana ay tahay bay tiri mid aanay soo dhoweyn maanta iyo beri labaduba. Waxa ay Ruushka ugu digtay in sidoo kaleeto buundo uu marow ka dhigan doono dalka Ukraine oo dalal kale uu weerari doono. waxaa kaloo ay sheegtay in gobolada gooni-goosadka ah ee Moldovan ay ka mid tahay sidoo kaleeto uu Ruushka qorsheynayo in furmo dagaal uu ku furo. sida aad ogtihiinba Putin weli waxa uu sii raadinayaa bay tiri in uu markaasi cunaqabateen qudhiisa xitaa ku soo rogo oo waxyaabaha uu dhoofiyo durbabo uu ku gumaysto dalalkuusi oo ayay tiri. gabadhan oo kasii hadlaysay markaasi dagaalka dalka Ukraine iyo siduu u ekaan doono, isla markaana sanadka Mareykanka la hadlaysay ayaa niyad xumo ka muujisay xaaladda ka jirta dalka Ukraine iyo sidoo kaleeto colaadda Ruushka uu halkaasi ka wado, iyadoo sheegtay in maanta aan waxba u qaban karin shacabka reer Ukraine marka laga reebo in cod iyo sidoo kaleeto dhaqaale lagu taageero. taasina ma aha bay tiri mid madaxweyne Putin ka horjoogsan doonta hadafkiisa inuu dagaalka guul ka gaaro. waxaan u malaynayaa in Kremlin-ka oo keliya uu mas'uuliyadda qaadan doono, sidoo kaleetona ay macquul tahay adeegsiga hub nuclear haddii Putin sidoo kaleeto markaasi laga badbadiyo oo hanjabaada Putin iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan sii kordhaan ciidamada Ruushka iyo dhaqaalaha dalka Ruushkuba. taasi waxa ay banaanka keeni doontaa kana dhameyn doontaa adeegsiga hubka nuclear-ka ee markaa uu ku hanjabayo dowladda Ruushka. Putin siyaabo kala duwan ayuu u fikirayaa ayay tiri gabadhani, laakiin Russia weli maanay doonayso in dagaal caalamka oo dhan ka qaraxa ay hadda samayso. sidaasi waxaa sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka oo la yiraahdo Maria Zakharova. waxaa sheegtay gabadhani in Ruushka uu diyaar u yahay nabad dunida ka islaaxda kana qayb qaato wada hadal walba. waxaa kaloo sheegtay in dowladda Ruushka ay si weyn u ixtiraamayaan xuquuqda insaanka iyo sidoo kaleeto bani'aadantinimada iyo in la ilaaliyo dadka shacabka. laakiin bay tiri xogaga ajnabiga ah ee Ukraine jooga kuwaasi ma cafin doono, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka. dhinaca kalena golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa iyaguna sidoo kaleeto ka dayrinaya xaaladaha ka jira wadanka Ukraine iyo weerarka uu Kiev ku qaaday dalka Ruushka. waxaana la warinayaa in xaalad bani'aadantinimo oo aad u daran hadda ay ka jirto wadanka Ukraine.